waxaanu idinku baaqaynaa arrinkan khayrka arrinkan samafalka masjid jaamaca Qorolugud oo la dhisayo oo maraya bilow inaad bilowga ka qayb qaadataan ayaanu idinku baaqaynaa waxaanu dadka muslimiinta ee sharafta leh ee karaamada leh ee barakaysan aanu u soo bandhigaynaa oo halkan aanu ugu sheegaynaa dhismihii masaajidka masjid jaamaca Qorolugud oo halkan ka socda haddaanu nahay degmada Qorolugud aanu ka mid nahay waayeelkoodii haddaanu ka mid nahay dadka islaamka meelay joogaanba waxaanu ka codsanaynaa masaajidka in la soo dhiso inta lacag baynu bixinaynaa sifooyin badan oo aan sharcigu banayn baynu wax ku bixinaa halkan joognaa degmada Qorolugud weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala gurigu jannada uga dhisaya qofka boolshimbireed in la eeg ku darsaday nabiga kaleey salaatu wasalaam boolshimbireed waa garanaysaan haddii aanu nahay shirkadda dhisaysa barako waxaanu ku ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo muddo sanad gudihiisa ayaanu ku ballan qaadaynaa inaan ku dhamaystirno haddii ilaahay ka dhigo waxaan halkan aan joognaa xafladda masaajidka masjid jaamaca degmada Qorolugud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا halkan ku soo bandhigaynaa ummadda muslimiinta aanu u soo bandhigaynaa annagoo ah culimadii ka kooban culimadii waxgaradkii uqaashii sulaadiintii muxsiniintii samafalayaashii intaba kana kooban degmooyinka Qorolugud iyo Burco labadaba waxaanu dadka muslimiinta ee sharafta leh ee karaamada leh ee barakaysan aanu u soo bandhigaynaa oo halkan aanu ugu sheegaynaa dhismihii masaajidka masjid jaamaca Qorolugud oo halkan ka socda masaajidkaas oo kadib markuu in badan muddo 50 sano ku dhow markii uu dhisnaa uu gaboobay isla markaa yaraaday aanu duminay oo halkan laga dumiyay oo dhismihiisi halkan 2 bilood waqti ku dhow hadda uu halka ka socdo waxaanu marti u nahay dadka muslimiinta ka codsanaynaa inay naga soo saacidaan oo lacagtii masaajidkaasi ku dhismi lahaa inay na soo gaarsiiyaan ayaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta walaalayaal masaajidkaas shirkad ayaa qandaraastay oo aanu ku wareejinay oo naga qandaraastay shirkad barakaysan oo la yiraahdo Albarako oo gudoomiyaheedii iyo injineerkeediiba halkayna la joogo oo markhaati kici doono insha Allah taala ayaanu ka qandaraasnay masaajidkaas waxay ku qandaraaseen lacag gaaraysa 237 oo dollar ayay ku qandaraaseen waxaanu markaa dadka muslimiinta ee waliba deegaanka iyo inta ku dhow aanu ka ururinay lacag gaaraysa 70 oo dollar lacagtaas waxaanu ku wareejinay 70 ka shirkadii baanu ku wareejinay waana taa hawshii ku bilowday hawsha ay ku socotay sida fiican ay u socoto lacagta waxa dhiman markaa 167 oo dollar ayaa lacagtaas dhiman waxaanu walaalayaal marti u nahay oo idinka codsanaynaa ilaahay idin barakeeyo ilaahay jannada mid ka qiimo badan ha idinka dhiso inaad degdeg nooga soo jawaabtaan oo masaajidka haddii ilaahay yiraahdo nagala qayb gashaan siduu u dhismi lahaa iyo siduu u dhammaan lahaa labadaba lambarada lagala soo xiriiri karo ee wixii xoga qofkii u baahdaa uu ka qaadan karo isla markaa saad kale ee qofkii khayrka ka qayb qaadanaya meel uu joogaba uu ku soo hagaajin karayo ayaanu halkan insha Allah taala idinka soo jeedinaynaa saadiya iyo dahab lambarada halkaas aanu idinka sheegaynaa iyo shirkadaha kale baanu idin sheegaynaa Allah khayr ha idin siiyo shirkadda loo yaqaan Telesom ama Barakaat loo yaqaano nambarka masaajidka uga furan waxa weeyaan waa 6604295 waxa ka soo baxaya tabarucaadka masjidka Qorolugud ayaa qofkii wax ku soo diraba uga soo baxaya nambarka Somtel ama Sayid Dahaba ee dahabshiila ee uu masaajidku khaaska u leeyahay ee wixii loogu soo diray ay soo gaarayaan isaguna waa 922735 isagana waxa ka soo baxaya masjid jaamaca Qorolugud baa ka soo baxaya waxa kale oo jira laba iyaguna akoon oo uu leeyahay masjidku masjid jaamac uu leeyahay labada akoon midna waa Daarasalaam Bank midna waa Dahabshiil weeyaan labada akoon baa yana jira
labada akoonna waa idiin sheegaynaa oo qofkii doonaya akoonnadaas inuu wax ku soo diro daarasalaam bank waa 62634632 dahabshiil isagana akoonka masjid jaamaca uga furan ee tabarucaadka ah waa 2590 lambaradaas xidhiidhna waa laga soo samayn karaa oo wixii xoga iyo marba masaajidku halku marayo culimada gacanta ku haysa ayaa la soo xidhiidhi kartaan oo soo weydiin kartaan. halkaan joognaa waa degmada Qorlugud weeyaan. waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta daafaha dunida jooga waxaan ka codsanaynaa inay markaa waxay masaajidka nagala soo qayb galaan lacagta markaa la sheegay 200 iyo markaa waxa weeyaan 37 ah lagu qandaraasay 70 doolar baan haynaa lacagta inta kale maqana la idin sheegay 167 ah waxaan ku codsanaynaa dadka muslimiinta rag iyo dumarba muxsiniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran inay masaajidka ka qayb qaataan Soomaalidu waxay tiraahdaa nolol markhaati dhigo masaajidna dhagax dhigo. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. masaajidkii Qorlugud waa masjid jaamici Qorlugud oo la dumiyey oo maanta gacanta lagu hayo oo la dhisayo marka waxa laynooga baahan yahay waanu dadka islaamka ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa kaleba in ay markaa ka soo qayb qaataan oo lacagta maqan insha Allah ay soo bixiyaan baan ku rajaynaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigu jannada uga dhisaya qofka boolshimbireed in la eeg ku darsaday buu nabiga kaleey salaatu wasalaam. boolshimbireed waa garanaysaan annaguna odayaashii ma garanaysaa deegaanka ayaanu nahay inta lacag baynu bixinaynaa sifooyin badan oo aan sharcigu bannayn baynu wax ku bixinaa ummadda islaamka waxaanu leenahay ilaahay idin barakeeyo masaajidka wax weyn maaha hal la caawiyo oo kharashka ha laga soo bixiyo weliba waxaan ku jirin lacagta gogashiisii iyo wixiisii way dambeeyaan. bismillaahi raxmaani raxiim haddii aanu nahay shirkadda dhisaysa ee barako waxaanu ku ballan qaadaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo iminka uu sarcan yahay oo waa kaa iminka idiin muuqda siduu u ekaanayana waa taa media waxaan soo dhigaynaa siduu markii hore u ekaa ayaan soo dhigaynaa. marka masaajidka waxaanu ka codsanaynaa dadka islaamka ee muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan oo si mug iyo miisaan looga qayb qaataan. annagu muddo sanad gudihiiya ayaanu ku ballan qaadaynaa inaan ku dhammaystirno haddii ilaahay ka dhigo oo lacagtii soo baxdo. bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu idinku baaqaynaa arrinkan khayrka arrinkan samafalka masjid jaamaca Qorlugud oo la dhisayo oo maraya bilow inaad bilowga ka qayb qaadataan ayaanu idinku baaqaynaa. waxa ay shirkadda barako ee dhisaysa ay ku dhisaysaa oo lagula heshiiyey lacag gaadhaysa 237 doolar lacag gaadhaysa 237 doolar. lacagta maxaa laga bixiyey? lacagta waxa laga bixiyey lacag gaadhaysa 70 doolar waxaana laga ururiyey dadka reer miyiga dadka deegaanka. maxaa hadhay? waxa hadhay 167 doolar. waxa aynu u baahannahay oo aan halkan kala hadlayaa 167 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo minkum bixiya. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka ilaahay u dhisa ilaahay dartii masjid uu wajigiisa ku doonayo ilaahay dartii ilaahayna dhigiisa ayuu uga dhisaa jannada. taa micnaheedu waa maxay xadiiskaasi? micnaha waxa weeye qofku jannu ku galaya qofka wax looga dhisay janno dhisme looga dhisay maxay ka dhigan tahay? waa janna lagu galaa. waxaana camira oo ku camira cibaado iyo dhisme mu'miniinta siduu ilaahay sheegay innamaa ya'muru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir wa aqaama as-salata wa aata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa'asa ulaa'ika an yakunu min al-muhtadin. qof kasta oo shilin ku darsada lacagta ugu yar iyo lacagta ugu badan ee lagu darsan doono mustaqbalka iyo 70,000 ee lagu darsaday
dadka allah waxaynu uga baryaynaa dhammaanteed aamiintana raaciya ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ka aqbalo ilaahayna waxaan uga baryaynaa muraadkii ay ula baxeen inuu ilaahay siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa muraadkooda oo san inuu siiyo inuu ilaahay arrimahooda u fududeeyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin anna waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku gaarsiinaya dadka islaamka ah haddaanu nahay degmada Qurlugud aanu ka mid nahay waa yeelkoodii haddaanu ka mid nahay dadka islaamkii meelay joogaanba waxaan idinka codsanaynaa masaajidka in la soo dhiso lacagtaa lagu qiimeeyey haddii ilaahay ka dhigo deg deg loo soo bixiyo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan aan joognaa xafladda masaajidka masjidul jaamaca degmada Qurlugud ee ka tirsan gobolka Buuhoodle ayaanu joognaa xafladdiisa dhagax dhiga